Gabadh dhalinyaro ah ayaa tiri, waxaan maqlay cod aadaan ah, heestii ayaan iska joojiyey anigoo sugaya inta uu ka dhammaanayo aadaanka. Laakiin intaan dhagaysanayay aadaanka, nooc kale ayuu ila noqday, waana la yaabay arrinka. Markuu dhammaaday aadaankii, heestii ayaan mar kale iska shitay, hase ahaatee waxaa qalbigayga ka guuxaya noocii dareen aan ka qaaday aadaankii aan maqlay. 20 daqiiqo kadib waxaan maqlay qof qaylinaya, laakiin codkiisa aad buu u sareeyay. Waan soo baxay anigoo isdhahaya jidka wax xun ka eeg. Waxaan la kulmay dadkii oo wada argagaxsan, dhammaantooda dibadda u soo wada baxeen, aadna u yaaban yihiin, samada wada eegayaan. Waxaan weydiiyey, maxaa dhacay? Cid ii jawaabto waan waayay, ilaa aan ugu dambayn aabbahay u imid, isagoo dhahaya, qoraxdii baa saakay galbeed ka soo baxday, albaabkii towbadana waa la xiray gabadhaydiyey. Cid kale wax u qaban karto ma jirto, wiil iyo aabbihii, nin iyo xaaskiisa, gabadh iyo hooyadeed. Xubin kasta oo jidhkayga ka mid ah ayaa waxay joojisay xarakaadkii markaan maqlay hadalka aabbe. Waxaan aaday hooyaday oo si xad dhaaf ah ii jecleed si aan ula hadlo, laakiin waan ka xumahay, ilama aysan hadlin. Dhulkii qaraxyo waaweyn ayaa ka dhacayo, samadii way dildilaacmaysaa, waxaan arkayaa malaa'ig ka soo hoobanayso. Intaa waa umriyo keliya, laakiin maalin ayay xaqiiq noqon doontaa. War hoogeyney, maxaan u diyaarsanay maalintaa? Mid ka mid ah dadkii hore ee saalixiinta ka mid ahaa ayaa wuxuu soo agmaray nin hilib dubanaya, wuuna iska ooyay. Ninkii wuxuu ku yidhi, maxaa kaa oohinaya? Hilib maad u baahneed? Wuxuu yidhi, may, laakiin bani aadamka ayaan u oynayaa. Xayawaanka jidhkiisa waxaa la geliyey dabka asigoo dhintay, laakiin insaanka asigoo xay ah oo nool ayaa naarta lagu ridaa. Rabbiyow jidhkeenna naarta uma dulqaadan karee, ee naga xuray kuleelkeeda. Aamin.